بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله اللهم وفقنا لما تحب وترضاه وبعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته مراد الرقن يرقي قرآن كقيبي waxaan isku dayayaa uun qur-aanka inaan wax ka tilmaamo waxaynu wada ogsoonnay nebiga calayhi salaatu wassalaam wixii ugu horreeyay qur-aan ku soo dega isagoo aan waxna akhriyi jirin waxna qori jirin yani nebi maxamed calayhi salaatu wassalaam ummi buu ahaa ummigu waa qof aan qoraalkana aqoon wax la qoray akhriskeedana aan aqoonin noloshii ku soo koray saas bay ahayd carab iyo dadkii dhulkaasi deganaana inta badan waxmay qori jirin dadka wax qoraa dad yar oo tirsan bay ahaayeen carabtuna may lahaynba thaqaafada wax qoritaanka waxay ahaayeen oral society thaqaafaadkan gabayada iyo afka iyo khudbadaha iyo waxa la jeediyo ku saabsan ee aan qoraal iyo buugaag iyo kutubtoona lahayn waxay ahaayeen dad diintu ka qalloocatay oo asnaam caabuda halka ilaahay ka caabudi lahaayeen waxay ahaayeen dad dhaqamo badan oo ay wateen aanay ahayn dhaqamo islaamku uu soo dhoweynayo qur-aankii koowaad ee nebiga loo soo dhiibay calayhi salaatu wasalaam ee ku soo degaa wuxuu se ka hadlayay iqra bismi rabbika aladii khalaq khalaqa alinsaana min calaq iqra warabuka alakramu aladii callama bilqalam callama alinsaana maa lam yaclam qur-aankii koowaad ee nebiga ku soo degay wuxuu ka warramayay wax akhris iyo qoraal iyo qalim iyadoo haddii la eego dhaqanka carbeed qof caadiya hadduu ahaan lahaa cidduu ka yimi qur-aanka kani waxaa laga yaabi lahaa inuu warxumaha iska daayo wanaagga hala sameeyo ilaahay laga cabsado meelaha in laga bilaabi lahaa laakiin ilaahay wuxuu u doortay kitaabkiisa inuu ka bilaabo iqra bismi rabbika aladii khalaq wax akhri idan ayuha alikhwa wax akhrintu oo ereygan dee qur-aan bay ka timi qur-aan min qara'a bay ka timi cinwaan waa diinta islaamiga ah waxay ku salaysantahay waxbarasho aqoon barasho aqoon la bartana waxa ugu sarraysaba dee rabbiga aqoonta iska loo la barto ilaaha dadka iyo khalqiga iyo bini aadamku inta badan markuu makhluuqaadka wax ka ogaadaa buu is-ammaanaa la yidhaahdaa ninkaasi waa injineer kani waa khabiir kani waa caynkan waxaad wax ka ogaatay waa in yaroo makhluuqa ka mid ah makhluuqaadkuna waa kitaab illaahi almanduur culimmadu waxay yidhahdaan laba kitaab baa jira mid qoran oo hadal ah oo ilaahay soo dejiyey iyo mid camaloo farsamo oo ilaahay sameeyo farsamadiisiiya ka farsamada ilaahay waxa weeyaan dunidan aynu arkayno o dhami waxaad qaanuun lagu dhigo o dhan qaanuun baa physics iyo mid baa chemistry iyo mid baa biology iyo mid baa kana qaanuunkan la sheegaya waxa weeyaan sidii alla wax u abuurun baynu isku dayayna inaynu wax ka baranno sidii wax alla u abuuray qofkan bini aadamka sidii ilaahay u abuuray ayaynu isku daynaa inaynu wax ku ogaano idan waxaynu ogaanay wax yar oo xikmadda iyo cilmiga ilaahay uu kownkan ku dhigaya qofkii intaa yar ka ogaadaa la odhanaya waa tabiib ama waa injineer waa muhandis waa khabiir waa caalim waa kan kitaabka labaadna waa mid ilaahay soo dejiyey oo hadalkiisiiya oo cilmigiisiiya oo ugu talagalay inaynu baranno
أنزله بعلمه. ولذلك أيها الأحبة وحتى إن ضدها يا إلهي كتاب كيسي كتاب كاسي صدح وحبا وينوغا باهيين نقول نقنو وحينوغا باهيين نقول نقنو تلاوة قراءة أخرين وإلهي سبحانه وتعالى قرآن كقوله أتل ما أوحي إليك من الكتاب واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك وأنا أتلو القرآن. نبي عليه الصلاة والسلام حيل فري وأمرت أن أكون من المسلمين وأنا أتلو القرآن. أخريا لي القرآن كان إنه أخرنا ولا ينفري كو إلهي أمانين وحقت الماما الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق التلاوة كأنه كتاب كسين تلا لما معناه في عربي كل هذا من ديوان تلا يتلو أخري من التلا يتبع وارها عويا والقمر إذا تلاها وإذا غنرانا. إلهي سبحانه وتعالى وحو أمانا يكوي كتابك أخريي الراعي لبدا معنى باللفظ يروي كوب سنية ورتل القرآن ترتيلا سادر هدي وحنا ركنا أيها الحبة قرآنك عبادة الله أخرية والله برطاه ونقص وافقسن قفكي حرف أخرية محولي هي طبعا حسنه إنا أعطينا داد أخرى ذا وحي علماء كل شيء قال لبي أفرتن حرف مالها إنتي أفر يلا باطن أفر بقول يلا باطن أشرب هذا علماء الحروف القرآن كتيرية قاركود وحي كنت الماما سدح بقول وكون نكبدني سدح بقول وكون هذا أخرى ذا وامسه مركز مرة ما يسوى 6 مليون أشرة طبعا مركز لو قلفته. إذن قرآنك أخرس كيس ووحلو عباديسته ووينوغا باهي وأنا حفظدين وأنا إلى الإنسان وأنا أخريسا وأنا كوردين إنسان لبا الشيء وكله مهمة أيام مركزية نشرة كو قرآنك والرسالة دي نبي محمد لو سعوديبي وأنا معجزة دي نبي محمد. ummadihii hore inta badan mucjisaduna shay gaar ah bay ahaan jirtay risaaladuna shay gaar ah bay ahayd. مثلا النبي موسى محل سوسي حوته كتابك توراة بوت معجزتي سنة محياه أشي قعنتي ضفادعدي قملكي وآياتك 9 هاي قرآنك كقرة أيه. إذا معجزتنا قاربة كتابنا قاربوها أنبياء دي قرآنك كشاكين يا مكورم يود مساسي هاي. أما النبي محمد عليه الصلاة والسلام معجزتي سير رسالة سوا مدخلة كتاب كان قرآن كابا معجزتي مركين معجزة لنا محين وجدنا وبينه ووحي عدينا إنه الرسول يهي. إذا دينتي النبي محمد لو سوري بوردن كتاب كقرآن باو أصله نبي محمد إنه النبي يهي حاجات كأوغانيسه قرآن كان نبي محمد إنه النبي يهي قرآن كان باشيغية. السلام مركاه إلهي وحي نقل هدلي نولشي نوردن إنه إصلاحيه وحي وكو قرانا وقرآن كان مركا قرآن كل وضع الشيء بوذي برقرة مرنا وحي النبي محمد عليه الصلاة والسلام النبي نبدي ساعدين مرنا وحي لين فريين نقول قرنه إيشيغي hadduu labadaa shay wadayay muxuu inooga baahayay markaa ma inaynu akhrino qura ku wardino maya wuxuu u baahan yahay inaynu fahamno oo ku tadabburno oo baranno oo culumta islaamiga ahi wuxuunbaa asal u ah qur-aankaasi
inaynu si xoogan u dhuuxno oo nabigu calayhi salaatu wasalaam dadka wuxuu ku qiimeynaya kitaabka si uu kala akhris badan yihin salaada ayaa idin tukinayaa la yidhi kuma aqra'ukum likitaab illaahi baa la yidhi ka idinku qiraa'o fiican cod qura maaha waagii hore ninka qirada wanaagsanle wuxuu ahaa alaqra likitaab illah ay alafham limaqaasidih waxaa ninka ugu aqoon badan leh waayo qur-aankan baa asal u ahaa xataa haddaad dhimataan oo xabaala laydin kala waayo nebigu qoladii uxud markii la aasayay muxuu yidhi labadii nin ee xabaasha lagu ridayeyba kee baa la horu marinaya xabaasha aqra'hum likitaab illaahi buu nebigu yidhi xabaasha waxa ku hor ridaan ilaahay kitaabkiisa kii akhri badan haddaad dhimatana saasaa loo kala maamuus badan yaho saa qur-aanka loo kala haysto ayaa maamuuska loo kala badan yahay aakhirana waxaa loo kala mansilo sarraynayaa iqra' warattil kamaa kunta turattil iqra' wartaqi baa la yidhahaa akhriyo kor jannada aayadday kaaga dhammaata halkay joogtaa baad joogsanaysaa idan booska sare aakhiro jannada iyo magac iyo maamuuska lagu kala leeyahy xisaabta la taagan yahayna dee waa ka axaadiista badan inoo sheegaysa inuu qur-aanku isagoo shafeeca imanayo idan mansilada qofka mu'minka ahi waxay ku salaysantahay qur-aanka iyo intuu u jiro qur-aanka iyo siduu u fahmo siduu u akhriyo siduu u weeleeyo siduu u garto waxaynu kaloo tilmaamaynaa qur-aanku markaad ka timaado duuduubkaasi hore ee ku saabsiisan qiraa'adiisa iyo wardigiisa carab quri kuma toose xataa luqada carbeed masaadir alluga alcarabiya fi lqur'aan haddaad barato kamiyadii ugu ballaadhnayd baad haysaayo luqa carbeed xataa ah usluubkaaga luqawigaaba xataa kor noqonaya haddaad fahamto kitaabkan qur-aana iyo erayada ku qoran markaynu kaa soo dhaafno waxaan leenahay qasdiga weyne qur-aanka ka dambeeya akhriskiisu waa in la fahmo oo lagu dhaqmo rabbanaa wabcad fiihim rasuula minhum yatluu calayhim aayaatik wayucallimuhum alkitaaba walxikmata wayuzakiihim ducadii nebi ibraahim ilaahu waxaad ka soo dhex saartaa mid qur-aanka ku akhriya oo cilmigiisana bara oo taskiyeeya tarbiyeeya ereyga yuzakiihim baa ducada nebi ibraahim u dambeeya laakiin saddexda aayadooda kale qur-aanka ah ee masaladan ka warramaya xagga horey soo martaa huwa aladii bacata fi lumiyiina rasuula minhum yatluu calayhim maxaa ku xiga marka wayuzakiihim ibraahim yuzakiihim tuu dambaysiiyey markuu ducaynayay laakiin ilaahay markuu sheegayo saddexda jeeree qur-aanka ay meelaha ku soo aroortayba yuzakiihim tuu soo horraysiiyey oo ah dadku intaanu qur-aanka cilmigiisa usii dhaadhicin inuu raboobo adigoo rabbaysan oo rabbigaa raacsiisan oo rabbaaniya inaad bilowdo qur-aanka iyo cilmi baadhistiisa iyo barashadiisa qur-aan akhris ku dhan maaha markaa u fiirsataan xadiidkii nebigu calayhi salaatu wasalaam muxuu ahaa ma jtamaca qowmun fii beytin min buyuuti illahi yatluuna kitaab allahi wayatadaarasuunahu baynahum ilaa nazalat calayhim asakiina wagashyathum alraxma waxafathum almalaa'ika wadakarahum allahu fii man cindah wuxuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam duul isuguma yimaadaan guri ilaahay guryihiisa ka mid ah iyagoo laba shay samaynaya shayga koowaad waa maxay iyagoo akhrinaya ilaahay kitaabkiisa maxaa ku xiga wayatadaarasuuna qiraa'o qura lama rabo waxaa la rabaa daraasa lilkitaab baranaya baa ilaahay yidhi subxaana wa tacaala hadday taasi dhacdo ilaahay sakiinuu ku soo dejiya sakiinadu waa xasillooni bini aadamka nolosha waxa ugu dhibta badan le waxaa ka mid ah ama dunidaynu maanta joognaa stress and anxiety ayay ka warwartaa soo maaha dunidaynu maanta ku nool lahay alqalaq waاlikti'aab wاlidiraab
xasilooni la'aan iyo warwar iyo walbahaar iyo baqa iyo waa dunidaynu maanta joogna ku soo ururtay dhakhaatiirta walbahaarka iyo waxaa ka shaqaysaa wadannada qaarkood bay waxay ka badan yihiin dhakhaatiirta kale oo dhan marka la isku daro caafimaadka intiisa kale oo dhan psychology and psychiatry baa iskaga badan bay yidhahdaan wadannada qaarkood macnaheedu waa maxay bini aadamka warwar baa wada haya mid hunguriguba warwar geliyo maxaad cuntaa ka warwaraya mid nabadi warwar geliso baqa ka warwaraya mid noloshaba warwar ka qaba mid guur warwar ka qaba mid shaqo warwar ka waa warwaraya ilaahay wuxuu leeyahay haddaad qur-aanka intaad akhrido baratidna cilmiga iyo waxa ku jira aad daraasaysid xasiloonaa kugu soo degaysa warwarku wuu kaa tegaya alaa bidikri illaahi tatmainu lquluub warwarku wuu kaa hadhaya haddaad warwar isku aragto qur-aanka iyo dikriga laazim waqashiyatuhum alraxma baa ilahay yidhi ilaahay naxariistiisa daboolaysa waxafathum almalaa'ika malaa'igtaa isku xeeraysa madaxda maxaa loo sameeyaa bini aadamka dunida askar iyo waxbaa la hortubaayo qaar salaamay iyo qaar soo dhaweey waxbaa soo dhaweeya soo maaha ahlullaahiga ahlulqur'aanka ilaahay wuxuu nebi maxamed ku tilmaamaya xafathum almalaa'ika makhluuqaadka kuwii ugu khayrka badnaa ayaa xafaawa u haya soo dhawayntooda waa kuwa waxaa kaloo la tilmaamay bini aadamku in la sheegaa buu jecel yahay maxaa wax u baranaysaan iskuullada maxaa u dhigataan inta badan le iskuulka waxaa loo dhigtaa hunguri iyo magac raadin socaka maaha hunguri dee aad xoogsatid iyo magac raadin meel madaxaad noqotid ha lagu maamuso aad noqotid nin meel laga sheego meelahaasi ka waran qofka bini aadam sheega iyo qofka rabbi sheego keebaa sheegmadiisu macno leedahay inaan anaguna hebel waa madaxweynihii waddanka waa wasiirkii sacaadatul-wasiir nidhaahno iyo in rabbi ku sheego keebaa habboon meesha lagaa sheegaya anaanay bini aadamka dhexdiisa ahayn halkan 10 kaloo aan ku dhaamin ama kaa liitaa lagaa dhex sheegaya halkan waxaa la leeyahay waxaa lagaa sheegaya maxay wadakarahum allahu fii man cindah ilaahay baa wuxuu ka sheegaya kuwa agtiisa jooga malaa'ikata almuqarabiinka agtooda ayaa lagaa sheegaya waxaan leenahay markaa waxaynu u baahnay qur-aanku laba shay midi waa akhriskiisi inaynu hayno midna waa inaynu daraasayno saynu u daraasaynaynaa waxaynu u daraasaynaynaa waxa ku jira inaynu dhuuxno oo la soo baxno kitaabka qur-aanka ah cilmi adduun iyo mid aakhiraba waa ku jira cilmi adduun iyo mid aakhiraba waa ku jira taariikhihii ummaddii hore tagtay iyo taariikhda dunida soo socotee naar iyo janno iyo xabaale iyo qabri iyo xisaab leh waa ku jiraan waxaa ku jira xaqaa'iqda cilmiga maanta culimmada muslimiinta ee aqoon-yahanada cilmiga sayniska bartay waxay leeyihiin akthar min 1000 aaya ayaa ishaaraad kowniya ka warramaysa 1000 aayadood oo qur-aanka ka mid ah ayaa waxay tilmaamayaan baa la leeyahay ishaaraad kowniya khalqiga cirka dhulka dayaxa samada bini aadamka dhirta xoolaha xayawaanka quraanjada malabka shinnida ilaahay subxaanahu wa tacaala makhluuqaadkiisa oo dhan buu ka warramaya oo weliba waxaasoo makhluuqa maxaa laga sheegaya ilaah calimo khabiira ka warramaya yacni xaqaa'iq baa laga sheegaya waxa rabbi ka sheegaya waa xaqaa'iq qur-aanka waxaa ku jira intaasoo mas'alo tib iyo wax loo baahan yahay waxaa ku jira tashriica bini aadamku uu baahan yahay oo dhan oo ah waxa bini aadam qaanuun uu baahan yahay oo dhan mid siyaasadeed mid dhaqaaleed mid maamul mid madaniya mid criminala waxa bini aadam uu qaanuun u baahan yahay oo dhan baa ilaahay kaga warramay qur-aankan waxaa ku jira wax allaaliya wixii nolosha fudaydiyo oo dhan idan ayuha alikhwa qur-aanka markaad qaybtay ma ogsoon tahay inaad qaybtay mawsuucada dunida ugu weyn encyclopediaad sidaa
encyclopedia sama taqaaniin mawsuucaadka mawsuucada maxaa lagu qoraa aqoonta bini aadamka wixii uu bini aadamku gaadhay baa inta la isku ururiyo ayaa la yidhaha waa encyclopedia oo mawsuucada may ku qorantay kani waa xaqaa'iqdii rabbi uu ka warramayay wax walba uu ka sheegayay maa faratnaa fi lkitaabi min shay tibyaanan likulli shay ilaahay ku tilmaamayo wax kasta oo bini aadam u baahan yahay baa ku caddeeyey baa ilaahay leeyahy waxaan kaga tegey ma jirto idan waxaa ninka qur-aanka qaybay waxaa laabtiisa ku jira mawsuuca rabbaaniya buu xifdisan yihi laakiin waa mawsuuco furayaal u baahan waxaad u baahan tahay waa kunuus ee inaad furfurto laakiin haddaad intaad qaybtay meel iska dhigto tidhahdo qur-aankii waan qaybay iminka xagga sayniskaan wadaya waa mawsuucadaadii ugu weynaydna cidlaad dhigaysaa in yaroo bini aadamkula midii soo qooshqooshayna waad wax weyn baad ka dhigtay oo wakhti weyn baad gelisay ma lihin waxa baranin wax baraan leenahay laakiin waxaan leenahay wax la barto waxa ugu qiimo badan kitaabkan waxa ku jira haddaad dhuuxdo oo gaadho kan waxa ku jira yakfiik fi lxayaa kulliha walidaalika mawsuuca raggiina waxaa la yidhi waa xufaad macnaheedu waxa weeyaa mawsuucaadkii dunida ugu weynaa baa laabtiina ku jira ee waxaa u baahantiin inaad faktaan markaa furfuris bay u baahan tahay aayad waliba marka sidaa la yidhaahdo waxaa ka soo baxaya intaasoo xukum oo sharciya waxaa ka soo baxaya intaasoo masalo kowniyo ay ka warramayso waxaa ka soo baxaya intaasoo qadiyadad oo dhaqaalo ay xallilayso waxaa ka soo baxaya intaasoo sharciyo ay tilmaamayso waxaa ka soo baxaya intaasoo qiso uu ka warramayso yaa ka warramaya waxan oo dhan anzalahu aladii yaclamu sira fi الsamaawaati wاlard ilaaha sirta iyo cirka iyo dhulkaba waxaa sir ku jira rabbiga og ayaa soo dejiyaa lagu yidhi imika innaga haddii layna yidhaahdo khabiir baa yimi haddii lagu yidhaahdo ka war dadku waxay odhanayaan khabiir hebel dhakhtar hebel oo khabiiraa yimi waxay yidhahdaan qoladan psychologygu class baa la keena dabeetana IQ-goodi iyo waxbarashadoodi iyo waxoodii baa la qiyaasay kadib baa waxaa lagu yidhi waxaa laydin keenaya macallin khabiirah oo kuwa khatartee laga dambeeya ah dabeetana macallimiintii caadiga ahayd unbaa loo keeno aanay garanaynin laakiin ardadaa waxay rumaysan tahay inuu ninkani yahay maxay macallimiinta ugu khatarsan dunida laga dambeeyo classku bay yidhaahdeen nataa'ijtiisii imtixaaniga iyo wixii oo dhammi way isbeddeshay classkii kale way ka sarraysay macallinkanina wax ka badan muu dhigin bay yidhahdeen wixii macallimiinta kale dhigaysay maxaa isbedelay bay yidhaahdeen waxaa isbedelay bay yidhahdeen maskaxda dadka maskaxda bini aadamku bay yidhahdeen waa saa loo forge gareeyo waa saa wax looga dhaadhiciyo walidalik baa waxaa la tilmaamaa qofku waxa waad qaban kartaa hadduu is yidhaahdo bay dhahay waxaa jira maalan berigii hore dream mile waxa la yidhahday sheegi jireen mailkaan 4 minute ka badan bini aadamku 4 minute ka yar hal mayl kuma ordi karaa la rumaysta oo xataa la isku dayay scientifically in la proof gareeyo saasaa la iska dhaadhiciyey nin dhakhtaroo ingiriisa unbaa yidhi war waxaan suurtagal maaha roger banner la odhan jiraa yidhi may dhakhtarna wuu ahaa orodyahanna wuu ahaa waa la jebin karaaye waa inaan tijaabiyaa mudduu waday wuu soo kordhiyey wuu soo kordhiyey 4 minute 12 second 4 minute 5 second wuu soo waday wuu jebiyey dabeetana waxaa la yidhi cajab nin baa soo baxay dunida mucjiso oo in yar kadib baa mid australia jebiyey sanadkii labaad 300 oo nin oo dunida ka mid ah orodyahankooda jebiyey 300 oo nin waxay leeyihiin marka hore dadka la cagsi geliyo la yidhi lama dhaafi karo 4 minute ninnaba ma dhaafi karo waa limitka bini aadamka laakiin waxay leeyihiin maskaxda bini aadamku waa qaabka loo qaabeeyo waa waxa ay rumaysato ilaahay kitaabkiisii baa sidaan macnaheedu waxa weeyaan waxaa sidaan mucjisadii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam waxaa sidaan macnaheedu waxa weeyaan risaaladii nebi maxamed loo soo dhiibay ninka labadaa isku haya nebi maxamed ba inuu nebi ahaa wixii proof garaynayay wixii caddaynayay iyo risaaladii loo soo dhiibay nebi maxamed si kale haddaanu idhaahdo ninka laabtiisa ugu jiro ilaahay hadalkiisii hadal bini aadam oo yar markaynu baranno
hebel waa khabiir waa dhakhtar waayo dee waxoogaa bugaagoo dhakhtarnimada ku saabsan buu si fiican loo barayo uu dadka ku daweeyaa markaa waa dhakhtar khatar ah intaasoo xanuun buu daweyn karaya ka waran xanuunka bini aadamka oo dhan ninka daweyn kara hadduu fahmo ilaahay kitaabkiisa qofka fahmaa bashariyada xanuunka hayoo dhan buu daweyn karaa every problem wax kasta oo mashkilada bini aadamku ka cawdo wuxuu doonaba ha noqdo waxaa laga helayaa kitaabkan qur-aanka ah walidaalika ayuha alikhwa markaa u baahantiin inaad dib ugu noqotaan waxa weeyaan qur-aankii waan qaybayoo bes dabeetana nin waalanunbaa saa yeela nin waalanunbaa idhaa qur-aankii waa anigii qaybayoo de malcaamadii iyo qur-aankii arrinkoodii wuu dhammaaday qur-aanka waxaad u qaybaysay waxay ahayd inaad furfurto inuu kuu fududaado saad u furfuri lahayd waa ilaa haddii kale qaybistiisu maxay soo kordhinaysay haddii uu noqonayo sidii gabay la qaybay oo kale kuwan gabyaaba intaasoo gabaya intaasoo heesay hayaan haddii uun hadal la qaybayo intuu noqdo bes halka aad ku ridayso mu ahayn danta laga lahaa waalidkaa dantu qur-aanka kuu qaybsiinay taa may ahayn qur-aankaa la qaybay danta laga lahaa waxay ahayd inaad fahamto inuu fududaado oo markaad mawduuc u baahato inaad garan karto aayaadkii ku soo arooro o dhan inaad soo ururiso oo aad isbarbar dhigi karto oo aad aayad kasta siyaaqeedii garan karto maxaa ka horreeyey maxaa ka dambeeyey saasay macno ku samaynaysaa aayaddii oo qur-aanka o dhan intaad isu keento marka aad furfuri karto fahmi karta baa loo baahnaa idan qofka qur-aanka qaybaa jaranjaradii hadduu cagta saara maaha wuu dhameeyey hadduu cagta saaray halkii loo baahnaa waayo halka loo baahnaa waxa idin la fahmo halka loo baahnaa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadii qur-aanku wuxuu ku soo degay nebiga 23 sannadood waa loo yaryareeyey maxaa loogu yaryareeyey inay fahmaan daraaddeed inay fahmaan daraaddeed ayaa loogu yaryareeyey dabeetana kolba in yar baa soo degaysay intaasaa lala falgelayay marka la garto ee dhacdooyin kala dhacaan baa in kala soo degaysay marka qur-aanka oo dhammi noloshaa fasiraysay innagu isagoo duuduuban baynu haysanaa dhammaystiran lo intaynu ka siinaa baynu sanad ku qaybaynaa ama ka yar ama in yar marka lagu daro 2 sano ninka gaabiyaana qur-aankii oo dhan waan qaybina oo cumar iyo abibakar iyo raggii rag ahaa waxay 23 sannadood baranayeen ma sanad baynu inagu ku gabagabaynay maya waxa weeyaan wixii ay ka rabeen waxaan ahayn baynu inagu raadinay inagu waxaynu raadinay alfaadda inaynu ilaalino qur-aanka markaad baranaysay waxaa la isku dayay makhaarijta in lagu saxo oo sifaadka lagu saxo oo sida loogu dhawaaqo lagu saxo oo lagu ilaaliyo waxaa ka sii muhiimsan in lagu ilaaliyo macnaha uu sheegayo iyo aayaddu shay sheegayso iyo kelmadani waxay sheegayso iyo aayaddani waxay ku soo inaad kaasii fahamtaaba waxay ka muhiimsan tahay inaad dhawaqeeda fahamto ma aha inaan leeyahay dhawaqu wuu liitaa maya dhawaqa sidii uu nebiga ugu soo degay in loo qabto qur-aanku waa muhim laakiin waxaynu u baahannahay inaynu dib u noqonno marka waxaan idin leeyahay haddaa bilowdeen qur-aankii mar haddaa qaybteen haddaa bilowdeen haddaan kooyaa weeyaan haddaad bilowday diinta barashadeedii haddaad bilowday sharciga ogaantiisii haddaad bilowday mucjisadii nebi maxamed loo soo dhiibay calayhi salaatu wasalaam inaad garato ilaahay wuxuu qur-aanka ku leeyahay afalaa yatadabbaruuna alqur'aana walow kaana min cindi gayri illahi lawajaduu fiihi ikhtilaafan kaiira afalam yadabbaruu alqawla am jaa'ahum maa lam ya'ti aabaa'ahum alawwaliin am lam yacrifuu rasuulahum fahum lahu munkiruun kitaabun anzalnaahu ilayka liyadabbaruu aayaatihi waliyatadakkara ulul albaab afalaa yatadabbaruuna alqur'aana am calaa quluubin aqfaaluha qur-aanka afartaa aayadood ayaa lafdu tadabbur ku soo arooray in wax loo fiirsado
أفرتما إلهي قرآنك وحكولي ميدا أفير سنني ميدا كنت تدبرين أفرتنا يدود لبنا ومكي لبنا ومدني لبا أنت مكلا شوقي صاد يا مؤمنون لبدا يدود كتشرة كتاب أنزلناه إليك ليدبروا آياته وليتذكروا أولو الألباب يا فلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين مكي كسودقي لبنا ومدني سورة محمد يا نساء مياهي لبدا كتشرة أنا ومدني يعني وحلت الماما يا قرآنكو هدي مكلا شوقين إنه بهين إن لو فيرصده هدي مدينة لشوقين إن لو فيرصده إلهي وحكو عيبي قالوا منافقين مشركين سكوا ضدر قرآن كان يفير سنين بالليل تدبركو كلمته أفري أفرتن شربي كلمة دبر قرآن كصارت جدري وحي كصارت أصل الكلمة معاني ذا وحكم ذا الظهر نبرك واستبق الباب وقدت قميصه من دبر ومن يولهم يومئذ دبره ولا مدبرا ولم يعقب إذا دبرك الله هذا حقا نبي حقا وقبل ورا حقا دمنا ودبر مركز دبضة كسي عام بحرين دبر لسيد هذا لكن تدبركم حوية مركز تدبركم حوية هي بيد هذا العلماء دو أديكو إسكودية واحد سوتشيت كيسو قرينا درجة سيتشيت كيسنا درجته هداد واحد نوال بكارك تمعنيه دوا محي إحاطة قصميسة واحد سكودة يدينا واحد سفي عنه فهمت نوال بوات سكتاكت waxay ilaahayna leeyahay marka la inama oran quraanka miyaanay akhrinin miyaanay eegin miyaanay wax ka fahmin miyaan macnaa badhuudha dhicin waxa la leeyahay afalam yatadabbaru war miyaanay quraanka dhan walba iska taagin baa la leeyahay oo tafakkurkooda iyo say u fakarayaan dhan walba quraanka miyaanay ka eegin ninka quraanka dhan walba ka eega ma gaaloobi karo weeyaan waayo gaala ilaahay muxuu ku ceebay أفلا يتدبرون القرآن المنافقين أم على قلوب أقفالها أفلا يتدبرون أيعرضون ولا يتدبرون القرآن مي كتشي سنة القرآن كأفر سن مايان أم على قلوب أقفالها بل على قلوب أقفالها قلبك قوة حدن با إلهي سبحانه وتعالى كوي هورنا وحلقوا المام وإلهي سبحانه وتعالى وليه markii la sheegay afala yatadabbaruna alqur'ana walau kana min 'indi ghayri allahi lawajadu fihi ikhtilafan kathira gaalada baa ilaahay yidhi miyaanay quraanka u fiirsanoo dhan walba ka eegin oo waayo walaw kana min 'indi ghayri allahi quraankani hadduu ka iman lahaa cid aan alle ahayn maxaa dhici lahaa lawajadu fihi ikhtilafan kathira isburin قدلولوين بدن بالهيل لها قاري ميلر روح قلت المامية وفلسفيكيشن تست وحيد هذا يعني قوليها علم بارك السماية مركز جامعة ده يميلها كلا تشوق ميلا وحلقوا بارو نمبا بحث السماية وحبو سوء قاده وحاو سوء قادي نظريات بوكانا ولا وحاسي عينك ويان intaan mujtamaca cilmiga aqbalin nadariyadna waa loo soo bandhigaa mujtamaca cilmiga marka baxfiga loo soo bandhigo waxa la isku dayaa in la duro oo la buriyo ninkaasi wuxuu sheegayay dhan walba in laga galo oo la muujiyo inay dumi karto hadday dumi weydo marka la waayo wax ra'yiyo oo dalooliya ama experimenta ama cilmi baadhiso aragtida dalooliye hadii la waayo waxa la yiraahdaa waa aragti cilmiye oo masaafka cilmiga bay gaadhaa marka wax lagu qoraa kutub cilmiye qaacida munadama la qaato dabeetana waxa la yiraahdaa falsification test baa la yiraahdaa waxa la mariyo nafsu shay baa ilaahayna leeyahay mariya quraanka bal waxa ilaahayna leeyahay subhanahu wa ta'ala afalam yatadabbaru alquran quraanka miyaanay u fiirsanin ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا با إلهي إلهي عدانا هين هدو كيما هدو وده كتاب موسوعة
oo aakhiriya adduun ka warramaya oo janniya naar ka warramaya oo dhaqaaliya siyaasad ka warramaya oo taariikh hore iyo taariikh dambe ka warramaya oo sharci ka warramaya qaanuun madani iyo qaanuun jinaa'iya ka warramaya oo kownka iyo ishaaraadkiisa ka warramaya oo wax walba sheegaya waa mawsuuca haddana aan wax isbaraanbarinayo wax la daloolin karaa ku jirin waxay sheegaysaa inuu mucjis yahay waxay sheegaysaa min cindi rabbi alcaalamiin inuu ka yimi waxay sheegaysaa inuu nebi maxamed nebi yahay calayhi salaatu wasalaam ilaahay markaa wuxuuna leeyahay qur-aankan dhan walba ka eego oo gaalkaa lagu ceebeeyey inuu dhan walba ka eegi waaye munaafiqaa lagu ceebeeyey inuu dhan walba ka eegi waaye innagana waxaa laynagu yidhi kitaabun anzalnaahu ilayka maxaa ku xiga okay kitaabkaa laynoo soo dejiyey innagana waxaa layna yidhi waa mubaarak waa barakaysan yihi wax waloo khayra baa ku jira maxaa loo soo dejiyey liyadabbaruu aayaatihi baa ilaahay yidhi waliyatadakkara ulul albaab danta laga leeyahay lama odhanan liyaqra'uu aayaatihi ee waxaa la yidhi maxay liyadabbaruu aayaatihi markaad qur-aanka qaybtay jaranjaradii baad isa soo taagtay qur-aanka looga baahnaa halkaasaad jaranjaradii koowaad baad timi waxaad u baahan tahay markaa inaad fahamto waxaad u baahan tahay inaad barato barashadiisa ayaa nolosha kugu filan walidaalika baa culamo waaweyni ayaa waxaa la sheegaa aakhirul cumrigoodii waxay ka calaacaleen wax badan aan wax kale ku bixiyey haddaan qur-aanka ku bixin lahaa haddaba nimanaynu a'immo u haysano waa ibnu taymiya waxaa la yidhaha markuu gaboobay waxyaabuu ku calaacalaya waxaa ka mid ahaa haddaan wakhtigaan wax kale ku bixiyey qur-aanka ku bixin lahaa wax badan oo kale uu baadhay oo cilmiya wuxuu leeyahay haddaan qur-aanka ku bixin lahaa baa kasii faa'iido badnaan lahayd haddaan isaga baadhistiisa tiro badin lahaa waxaynu u baahanay marka inaan qalbigeennu kaa qafilanee munaafiqiinta lagu sheegay ama kaa mushrikiinta lagu sheegay la yidhi qur-aankaba u fiirsan maayaan afalam yadabbaruu lqowl kuwa lagu sheegaya inaynan ka mid noqonin ee inaynu ku biiro kuwa qur-aanka u fiirsada oo kuwa qur-aanka u fiirsada waxay kala tagaan macno dhammaanteedba kuwa u fiirsan waaya bal u fiirsa ilaahay siduu u ceebeeyey ilaahay wuxuu yidhi waman adlamu yaa ka dulmi badan baa la yidhi miman dukira biaayaati rabbihi faacrada canha waman adlamu miman dukira biaayaati rabbihi uma acrada canha waa laba aayadoodoo kala gedisan ilaahay wuxuu leeya yaa ka dulmi badan mid qur-aan loo sheegay oo ka jeestay oo bal mid hayo isagu ka jeestay dhegayso kan waaba loo sheegaya mid isagu laabta ku sitoo ka jeestay qur-aan nin laabta ku sita oo garanayo xifdisan oo aan iskuba dayin inuu fahmoba aan iskuba dayinba inuu fahmo ilaahay wuxuu leeya yaa kaa ka dulmi badan waayo nin qur-aan sita oo le waxba garan maayo wuxuu la mid yahay nin biyo iyo raashin sitoo yidhaahda gaajo iyo haraad baanu litaa ayaa waxaan cunaysiiya maxaad odhan lahayd waa nin yaro waalan soomaa tidhaahdeen haddaad u timaado nin gaadhigiisa ama faraskiisa wuxuu wato raashin nooc walba ah iyo biyo iyo sharaab nooc walbay ku raran yihin oo dadka dawarsanaya haddaad aragta maxaad samayn lahayd oo le aan waxaan cunayaa ii dhiibay ama waxaan cabbayaa i siiyey waxaa odhan lahayd kan waa mactuuh shubaya dhaandhaan soo maha waxbaa ka yaro maqan nin qur-aan hayoo le yaa waxbaroo meel kale orordaya oo waxbarasho kale raadinaya waa shuwaya mactuuh waayo wixii bini aadanba baran lahaa ee cirka ka soo degay ee rabbu samaawaat uu soo dejiyey ninkuu agtiisa taalla ee wax kale raadceeyey reer banu israa'iil markii almanu wasalwa la siiyey maxay yidhaahdeen basalya baanu doonaynaa miyay yidhaahdeen iyo cadas iyo waxaa loo jeedin waa nimankii waxaa la siiyey waxaa la mid ah ninka qur-aan la siiyey ee sheekooyinkan meelahan dhadhow lagu hayo daydeeya iyo reer nebi aadameynahan ay qorqoreen oo qura daydeeya wuxuu la mid yahay atastabdiluun kuwaa ilaahay ku tilmaamay kuwaa la yidhi ma waxaa wax ku bedelanaysaa waxa kan
qur-aanka nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam cidda mashquulka ku ah sababta loo ammaanay waa kaa markaa khayrukum man tacallama alqur'aana wacallama man tacallama alqur'aana maaha bialfaadihi wa xuruufihi faqat ninka xarfihiisa bartay oo qura maaha waa man tacallama alqur'aan baa la yidhi qur'aanka ninka bartay lafdan wa macnan bartay risaaladaasi ogaaday oo dadkana gaadhsiiyey kaas khayrukum baa nebi maxamed ku sheegaya waa ninka idinku khayr badan ilahay wuxuu ina leeyahy walaakin kunuu rabbaaniyiina bima kuntum tucallimuuna alkitaaba wa bima kuntum tadrusuun daraasa waa cilmi baynu u baahannay inaynu baranno waxaa laga yaabaa dadka badh in lagu yidhi dee wuu adag yahay qur-aanku af carabiga ka sii adago qur-aankaa sii adago haye af ingiriisiga fudud baa umalaynaysaa qur-aanku ma adka af carabiguna ma adka ilaahay wuxuu leeyahy fainamaa yasarnaahu bilisaanika lacallahum yatadakkaruun walaqad yasarna alqur'aana lidikri fahal min mudakir fainamaa yasarnaahu bilisaanika litubashira bihi lmuttaqiin ilahay wuxuu ku tilmaamayaa kitaab muyasar bitaysiir ilaahi subxaana wa tacaala waa kitaab fudud baa rabbi yidhi intaasoo fanniyo meel qura ku wada qoran oo haddana fudud weeyaan baa ilaahay yidhi ilaa ninka qur-aanka baranaya waa nin qaanuun baranaya oo siyaasad baranaya oo iqtisaad baranaya oo caqiido baranaya oo sharci baranaya oo akhlaaq baranaya oo taariikh baranaya oo aakhiro iyo qiyaamo baranaya oo dikri baranaya oo ilaahay sidaa loo baryo baranaya oo sidaa loo cibaadaysta baranaya oo gaalnimo waxay tahay baranaya waxaasoo cilmiya ninka wada baranaya ee is tidhaahda waxaasoo dhan baro hadduu is idhaahdo xaggan bini aadamka ka baado doontiihi baa ku dhacaya intaaba ma wada ogaan kartid in yaroo intaa ka mid ay kuu walwalaaqi doonaan laakiin haddaad rabto intaba inaad wada ogaato qur-aanku maro intaba haddaad rabto inaad wada ogaato kitaabkan bay intaba ku wada qorantay bal huwa aayaatun bayinaatun fii suduuri aladiina uutuu lcilma baa ilaah yidhi waa aayaad cadcad buu qur-aankani ku yahay kuwa cilmiga la siiyey laabtooda walaqad ji'naahum bikitaabin fasalnaahu calaa cilmin hudan waraxmatan liqowmin yu'minuun waxaanu la nimi baa ilaahay leeyay bini aadamka kitaab fasalnaahu calaa cilmin aanu kala bixbixinnay oo aqoon lagu kala bixbixiyey baa ilaahay leeyay kitaab aqoon iyo cilmi lagu kala bixbixiyey baan u keennay baa rabbi leeyay subxaanahu wa tacaala qur-aanka waxaa rabbi ku tilmaamaya inuu yahay nuurka wax lagu ifsado laydhkan maxaa lagu falaya in wax lagu ifsado soo maaha shayga aad rabto inaad aragto inaad si waadixa u aragtid ayaa toojkan iyo nalkan laynoogu ifiyey kamaradaasi inay si waadixa wax u sawiri karto haddii nalka la damiyo kamaradaasi sawir aan wada muuqanaynin bay soo saaraysaa ilaahay qur-aanka wuxuu leeyahy yaa ayuha annaasu qad jaa'akum burhaanun min rabbikum waanzalnaa ilaykum nuuran mubiinan baa ilaah yidhi nuuran مبينا نور عد الله سبحانه وتعالى قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام فآمنوا بالله ورسوله حكوا حقا والنور الذي أنزلنا إلهي الرمي يا رسول كي سبا يا النور كي أن سودة شيبا إلهي لي اللايت إف كي أن دي سودة شيء muxuu ifinayaa alxayaa kulliha nolosha dhammaanteed buu ifinayaa haddaad aakhiro doonayso isagaa lagu ifiyaa haddaad adduunka doonayso isagaa lagu ifiyaa haddaad sharci iyo qaanuun doonayso isagaa lagu ifiyaa haddaad siyaasad iyo dhaqaale doonayso isagaa lagu ifiyaa waxaad u baahan tahay noloshoo dhan isagaa ifinaya waa nuurun yustadaa'u bihi waa nuur magdiyada lagaga baxo faaladiina aamanuu bihi وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه با إلهي نبي محمد كوي الرمية وهيلية تاغيري إيه محي راعي با ليلي واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون ولذلك أيها الإخوة الحسن بن العلي بوحليه إن من كان قبلكم رأوا القرآن رسائل من ربهم
فكانوا يتدبرونها بالليل ويتفقدونها في النهار بولي سواد الله اللي يقول كويدين كيدين كوري صحابة النبي وشيغية وحيا هاي ينبيل القرآن كوحوار كي الرسالة حق إلهي ويمي تصالح دي ما أنت القوي هذا مدحوينها مرايكا كاكو صادري وراق حضر الله وأديك كوكو صعطة هبلة قال وراق بقى يتم بدر الله هذا حقيقة تم مدحوينها مرايكا مدحوينها مرايكا كان من وين كلاه متى كلا واحد سلا أكتس الدولة دي العقية حوالي وحبايا لهم هم جورا كاجا كذا وهم لقى هلي كران كاس تكلا أديك مركو جار كوكو صادري وراق الله سيدا ديال له متسك تبرلو ميلها جوجا موجين له تمام الله هذا بالورق ده نيا آخر مدحوينها هاي صادريه بس واحد أوران الله هيد ورا في إنجليزي جاي مقالة ضوية قارنا سيادو آخر ده between the lines واحد كستوكو قرآن سيادو فهم كرتو واحد أوران الله هيد يا وحرف سنة يمعنيه حاضر مالين هدات سيدة الرسالة إلهي كتبي إلهي الدنيا ده بس كلها عرك يردلك يوحورنا إلهي لها يا وراق صادري وراق ده مقارنة يسا وقرآن كان هاي ستان دي إلهي وعرك كصادري وملك الجبريل سودي بي ودبتنا النبي محمد الله كان عليه الصلاة والسلام النبي محمد وين سو قارسي عليه الصلاة والسلام وراق راس بقوتمي وراق راس مركا إنه ربنا إنه آخرنا محي أباهنت إنه نسدا وآخرنا وراق دي مدحوينها يانا منك وحوقا يستوقوا صدري بدل هذه سيعد تقانه وراق ضايا لا رادين يا مركا قف بقف كوكا أقون تبدين يوقا أقون تبدين وين لا رادين إنه آخريه إنه الشرح وحقو قرن سادر أدد حسن بن العلي وحليه إن من كان قبلكم رأوا القرآن الرسائل من ربهم كويني كيني كهري قرآن كان وحيوار كي ينبول الرسالة حق الله وغتبي دبتنا فكانوا يتدبرونها بالليل هبين ودن ويوفير سنيه هبين كي صلاة الليل كبرك الله كعوه عبادة قول الله ما كعوه ووقتي dunida aan sanqari jirin oo caqtu goodo oo sanqadhu goodo imika hadaad istiraado halkan istaag cod baa baxaya meel walba saani wuxuu maqlimaysid habeenkii laakiin haddaan cod jirin gaadhiga madaxtooyada agteeda maraya waad maqlaysaa sanqadhiisa imika si maqlimaysid halkaa maraya waayo dawda tiro badan baa ka sokeeya habeenkan la kacaya macnaheedu waxa weeyaan qofku waqti caqligiisu uu soo jeedo oo si fiican uu wax u fahmi karo oo wax wiican baran karo inuu istaago oo quraanka akhriyo quraanka ay akhrinayaan iyaga soo akhrinaya isaga qofku raba inuu fahmo si tadabbur loo akhriyo ولذلك ولا tilmaamay nabigu عليه الصلاه والسلام salaadaha dadka markuu tukinayo si fudud buu tukan jiray laakiin markuu kaligii tukanayo quraanka akhriskiisa wuu la noolaan jiray آيات عذابه هدو صومرو إلهي بو كمغان غلي جيري من جنة هدو صومرو إلهي بو ويديسان جيري وا كو تدبر جيري وا كو خشوع جيري وا إلمين جيري قرآن كان بو اسكو دايي inuu fahmo waxa uu ka waramayo idan marka habeenkii la kacay la leeyahay salaatu leyl baa loo kacayaa dadku waxay u fahmeen inuu ajar la raadinayo cibaado ajarka iyo cibaadada waxa ka sii muhiimsan in la fahmo ilaahi kitaabkiisa waqti aan sanqadh iyo buuq iyo waxba toona jirin inaad isku daydo rabbiga kalaamkiisa inaad akhrido إذن أيها الإخوة هذا ربط القرآن كينات فهمته قلبك قال الله أرورية إلهي وحلي إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد قرآن كان وحوانا وقصوا كان تيبال لمن كان له قلب حي يقف له قلبك هدوك الضبال مدن بيقول تكبط يا خلاق حمد يدغر حمد كبضته والضبال ما مركها هدو الضبال ما وحفي يعني ما قالان لكن هدي لا صفيه مرايده غورما لا اسكو اركا دوسكا كو كبطو مرايده تاتر هذا ما حكو موقن اسكا geedu ma arki daadu sarki maysid laakiin hadaad safaysa maxaad arkaysaa markaas aad saarkaysaa qalbiga bini aadamkuna waa saasoo kale hadii xumaha laga safeeyo cibaadaadkan iyo dhikrigan iyo astaghfirullah kan iyo macasido laga dheeraado safeeya hadii laga safeeyo waxa soo baxaya quraanku waxaad u fahmaysaa si aanad weliga u fahmi jirin si aanad hore ugu fahmi jirin baad u fahmaysaa
ولذلك وحل يدي قرآن كان وحكوا توبة لمن كان له قلب مت قلب حي يله أو ألقى السمع دكتر الرعيي حين هذا دكتي يا أفكو اسكو ما فعلا اسكو مر مشقية هذا لا يسوح ما مغلي صح سفي عم مغلي ماشي مركات ربطه إلى دوح مغشم حد سميسه وبلا مصابتنا يعني أفكار الله حلا سيدكتو محي أي سفي عن وحقو مغشو قال دي مركي ربي القرآن كينا سفي عن الله مغلين حي هذا لا تسمعوا لهذا القرآن حكوا حيقة والغوا فيه والقرآن قد اكتهوا الرعينا نبينا هنا كبوغا يعني الاسباب مغلينه مركي ما يشوف بوغ نقطة والاسكي كالتقي إلهينا محيين ويري وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون إلهينا وحيد هذا القرآن كما قشان الله أخريه آموسا ودقيستو قلبك الرارعية بالليل وهو الشهيد بالغة المام أو ألقى السمع وهو الشهيد شهيد وهو حاضر القلب غافل عن هين مرمر بقفكو دنو جوغا دنو مقي سما درجتكم مركي سلاة دايرة سهوية مقالد حسابين يا صومر يا الحمد لله رب العالمين وسكوضها عربكو وسك صعودها لكن مسكحد بحيكم مقانته ما لك راي دوافيسا شهيد متيد بركه حاضر متيد يا عربكم ما وحا خرينيا حاضر وحا طهي marka aad ku tala jirto waxan inaad si fiican aad u fahamtid aad sheegayso ولذلك ايها الاخوه لينذر حيا بايلهي قرانka waxa loogu tala galay in loogu digo maxay mid nool waxaynu u baahanay marka nolosheenu waxay u baahnayd oo dhami quraankan buu ku yaalaa يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول حكوا حقا إذا دعاكم لما يحييكم إلهي الرسول أقبل بالا يدي مركا يدنكو ياران محي وحن نولشينا يكوشرتا وحكو نولان إسان وحن نولش هذا كوشرتا سعيد والبكا ما دقيستين دي لقودا مستقبل كاقيا نولش هذا ونبا لقو شاقيا وحي كوشرتا إلهي وحولي إلهي الرسول كي دقيستا مركا لا يدنكو ياريو وحن نولشينا يكوشرتا قرآن كان إلهي وحكوت المامية وننزل من القرآن ما هو شفاء محكية لما الشيء بود الدوية شفاء الأبدان وي شركة بود دوية شركة قرآن ولا سكو أخرى ولا سكو دوية ما أنتنا خاطر وين المسلمين وحي عضيسي انه عدو البدويه قال يا مسلم حطا دكتور احمد القاضي يبحث ساخريا نتك قال احمد القاضي ودكتور وين مسلم ها عرق امريكان كجوغي وحصميستي markuu dhakhtaradii wadnaa iyo sanbabada bedeli jiray buu ahaa markii uu pensioniska gaadhay ayuu meel yaro private samaystay dhakhtaradii waaweynay uu ka shaqeyn jiray dadka laga quusto oran jiray isoo wareejiya wixii dhakhtarku shaqo loo waayay loo taag waayo dadkan kansarka qaba iyo AIDS iyo waxyaabo dad la yiraahdo 6 bilood baa ku hadhay geeridii ama bilbad si noolaanaysa ama saddexda ayuu oran jiray saddexda xaqan ha joogaan aniga la igu wareejiyo wixii bini aadam wado dhan laga quusay markaas wuxuu ku tijaabin jiray أحاديث النبي قال وحن كسر أرورية قرآن كان ملب إيو حباسود إيو قرآن لغو آخرية قفبا قرآن لغو آخرين إياه دو تنوحو كحدا قلب كان قفك تمبريتشر كيسا ديگا كيسا وحيسا كان إيغايا انت عن قرآن كان لغو آخرين ميل بوشوغا قرآن كان مركا لغو آخرية سفي عن بودا دقيا حتى وحو تجابيه قرآن كان نوعين لغو آخرية قرآن بغير تجويد إلى آخره هي قرآن مجود صفي على آخره قرآن كان مجود كتأثير بطي كان لقى تبرسيه حتى وحو تجابيه أرمى عد كيهي أف عربي لقو غنيه يوصل القرآن كان له آخره بكو آخره وحبا يثبت الواي وحنا وجه هذا شركة وكا عافمات وحو كلو عافمات كي قلبك يمدوية قالونا عقيدة حمدة يدين لا أنت أخلاق حمدة يدقر حمدة وحلالية وحب بني آدم كان مرض نفسي اجتماعي كله عدم مدوكي إذن أيها الأحبة
kelmadda waan soo koobayaa waxay ku kooban tahay qur-aankii baa la dhameeyo iskuullaa la dhigtaa oo qur-aankii waa laga tegay waa nacasnimo halkii kama dambaysta ahayd weliba ah waxaan idinka rabaa qur-aankii baa dhammayseen haddaa bilowdeen markaa waayo xifdigiisii uun iminka sidii loo akhrinayay unbaa haysaan haddaa bilowdeen inaa hadda ka kowsataan oo hore uga socotaan iskuulladiina dhigta laakiin wakhtigu wuu idinka badan yihi dhallinyaraatiin shaqo kale ma qabataan qof wax kale ku mashquulayaa ma jiro imise saacadood baad maalintii sheekaysaan kuma runii sheegaya intuu saacadood uu sheekeeyo maalintii ma jira hal nin oo ii sheegaya run oo leh anigu intaasaan maalintii sheekeeya haye iskuulka markaad tagto waxaad dhigataa dhowr saacadood baad iskuulka soo dhigataa inta kale maxaad qabataa soo hadal uun maaha hebel baa halkan maray iyo hebel baa seexday iyo hebel baa yimi iyo hebel baa sii socday iyo hebel baa waxaa wax laga anfacadaa ma jiro imisa t v daawataa dhowr boqoloo saacadood baad iminka soo daawatay sanadkii u dambeeyey waxba ma ka xasuusataa waxba kama jiraan haba aan mansuura adiga iyo kii soo daawana isku mid baa ka tihin waktigii wuxuu ku lumay wax bilaa macno ah marka waxaan idin leeyahay waktina waa haysataan caqli farash oo cusubna waa haysataan dhul wax laga barto tiro badanina waa joogaan qur-aankaa barateen bal horta isku daya macnihiisa iyo sharcigu sheegaya iyo wuxuu ka warramayo inaad hore ugu tallaabsataan sala allahu cala nabiyi moxamedin wala alihi wasaxbihi wasalam walxamdu lilahi rabbi alcaalamiin xeeraysa madaxda maxaa loo sameeyaa bini aadamka dunida askar iyo waxbaa la hortubaayo qaar salaamay iyo qaar soo dhaweey waxbaa soo dhaweeya soo maaha ahlullaahiga ahlulqur-aanka ilaahay wuxuu nebi maxamed ku tilmaamaya xafathum lmalaa'ika makhluuqaadka kuwii ugu khayrka badnaa ayaa xafaawa u haya soo dhawayntooda waa kuwa waxaa kaloo la tilmaamay bini aadamku in la sheegaa buu jecel yahay maxaa wax u baranaysaan iskuullada maxaa u dhigataan inta badan le iskuulka waxaa loo dhigtaa hunguri iyo magac raadin socaka maaha hunguri dee aad xoogsatid iyo magac raadin meel madaxaad noqotid ha lagu maamuso aad noqotid nin meel laga sheego meelahaasi ka warran qofka bini aadam sheegsheega iyo qofka rabbi sheego keebaa sheegmadiisu macno leedahay inaan anaguna hebel waa madaxweynihii waddanka waa wasiirkii sacaadatlwasiir nidhaahno iyo in rabbi ku sheego keebaa habboon meesha lagaa sheegaya anaanay bini aadamka dhexdiisa ahayn halkan 10 kaloo aan ku dhaamin ama kaa liitaa lagaa dhex sheegaya halkan waxaa la leeyahay waxaa lagaa sheegaya maxay wadakarahum allahu fii man cindah ilaahay baa wuxuu ka sheegaya kuwa agtiisa jooga malaa'ikata almuqarabiinka agtooda ayaa lagaa sheegaya waxaan leenahay markaa waxaynu u baahnay qur-aanku laba shay midi waa akhriskiisi inaynu hayno midna waa inaynu daraasayno saynu u daraasaynaynaa waxaynu u daraasaynaynaa waxa ku jira inaynu dhuuxno oo la soo baxno kitaabka qur-aanka ah cilmi adduun iyo mid aakhiraba waa ku jira cilmi adduun iyo mid aakhiraba waa ku jira taariikhihii ummaddii hore tagtay iyo taariikhda dunida soo socotee naar iyo janno iyo xabaale iyo qabri iyo xisaab leh waa ku jiraan waxaa ku jira xaqaa'iqda cilmiga maanta culimmada muslimiinta ee aqoon-yahanada cilmiga sayniskaa bartay waxay leeyihiin akthar min 1000 aaya ayaa ishaaraad kowniya ka warramaysa 1000 aayadood oo qur-aanka ka mid ah ayaa waxay tilmaamayaan baa la leeyahay ishaaraad kowniya khalqiga cirka dhulka dayaxa samada bini aadamka dhirta xoolaha xayawaanka quraanjada malabka shinnida ilaahay subxaanahu wa tacaala makhluuqaadkiisa oo dhan buu ka warramaya oo weliba waxaasoo makhluuqa maxaa laga sheegaya ilaah calimo khabiira ka warramaya yacni xaqaa'iq baa laga sheegaya waxa rabbi ka sheegaya waa xaqaa'iq qur-aanka waxaa ku jira
intaasoo mas'alo tib iyo wax loo baahan yahay waxa ku jira tashriica bini aadamku uu baahan yahay oo dhan oo ah waxa bini aadam qaanuun uu baahan yahay oo dhan mid siyaasadeed mid dhaqaaleed mid maamul mid madaniya mid criminala waxa bini aadam uu qaanuun u baahan yahay oo dhan baa ilaahay kaga warramay qur-aankan waxaa ku jira wax allaaliya wixii nolosha fudaydiyo oo dhan idan ayuha alikhwa qur-aanka markaad qaybtay ma ogsoon tahay inaad qaybtay mawsuucada dunida ugu weyn encyclopediaad sidaa encyclopedia soo ma taqaaniin mawsuucaadka mawsuucada maxaa lagu qoraa aqoonta bini aadamka wixii uu bini aadamku gaadhayba inta laisku ururiyo ayaa la yidhaha waa encyclopedia oo mawsuucadan bay ku qorantahay kani waa xaqaa'iqdii rabbi uu ka warramayay wax walba uu ka sheegayay maa faratnaa fi lkitaabi min shay tibyaanan likulli shay ilaahay ku tilmaamayo wax kasta oo bini aadam u baahan yahay baan ku caddeeyey baa ilaahay leeyahy waxaan kaga tegay ma jirto idan waxaa ninka qur-aanka qaybay waxaa laabtiisa ku jira mawsuuca rabbaaniya buu xifdisan yihi laakiin waa mawsuuco furayaal u baahan waxaad u baahan tahay waa kunuus ee inaad furfurto laakiin haddaad intaad qaybtay meel iska dhigto tidhahdo qur-aankii waan qaybay iminka xagga sayniskaan wadaya waa mawsuucadaadii ugu weynaydna cidlaad dhigaysaa in yaroo bini aadamkula midii soo qooshqooshayna waad wax weyn baad ka dhigtay oo wakhti weyn baad gelisay ma lihin waxa baranin wax baraan leenahay laakiin waxaan leenahay wax la barto waxa ugu qiimo badan kitaabkan waxa ku jira haddaad dhuuxdo oo gaadho kan waxa ku jira yakfiik fi lxayaa kulliha walidaalika mawsuuca raggiina waxaa la yidhi waa xufaad macnaheedu waxa weeyaa mawsuucaadkii dunida ugu weynaa baa laabtiina ku jira ee waxaa u baahantiin inaad faktaan markaa furfuris bay u baahan tahay aayad waliba marka sidaa la yidhaahdo waxaa ka soo baxaya intaasoo xukum oo sharciya waxaa ka soo baxaya intaasoo masalo kowniyo ay ka warramayso waxaa ka soo baxaya intaasoo qadiyadad oo dhaqaalo ay xallilayso waxaa ka soo baxaya intaasoo sharciyo ay tilmaamayso waxaa ka soo baxaya intaasoo qiso uu ka warramayso yaa ka warramaya waxan oo dhan anzalahu aladii yaclamu sira fi الsamaawaati wاlard ilaaha sirta iyo cirka iyo dhulkaba waxaa sir ku jira rabbiga og ayaa soo dejiyaa lagu yidhi imika innaga haddii layna yidhaahdo khabiir baa yimi haddii lagu yidhaahdo ka war dadku waxay odhanayaan khabiir hebel dhakhtar hebel oo khabiiraa yimi waxay yidhahdaan qoladan psychologygu class baa la keena dabeetana IQ-goodi iyo waxbarashadoodi iyo waxoodii baa la qiyaasay kadib baa waxaa lagu yidhi waxaa laydin keenaya macallin khabiirah oo kuwa khatartee laga dambeeya ah dabeetana macallimiintii caadiga ahayd baa loo keeno aanay garanaynin laakiin ardadaa waxay rumaysan tahay inuu ninkani yahay maxay macallimiinta ugu khatarsan dunida laga dambeeyo classku bay yidhaahdeen nataa'ijtiisii imtixaaniga iyo wixii oo dhammi way isbeddeshay classkii kale way ka sarraysay macallinkanina wax ka badan muu dhigin bay yidhahdeen wixii macallimiinta kale dhigaysay maxaa isbedelay bay yidhaahdeen waxaa isbedelay bay yidhahdeen maskaxda dadka maskaxda bini aadamku bay yidhahdeen waa saa loo forge gareeyo waa saa wax looga dhaadhiciyo walidalik baa waxaa la tilmaamaa qofku waxa waad qaban kartaa hadduu is yidhaahdo bay dhahay waxaa jira maalan berigii hore dream mile waxa la yidhahday sheegi jireen mailkaan 4 minute ka badan bini aadamku 4 minute ka yar hal mayl kuma ordi karaa la rumaysta oo xataa la isku dayay scientifically in la proof gareeyo saasaa la iska dhaadhiciyey nin dhakhtar oo ingiriisi un baa yidhi war waxaan suurtagal maaha roger banner la odhan jiraa yidhi may dhakhtarna wuu ahaa orodyahanna wuu ahaa waa la jebin karaaye waa inaan tijaabiyaa mudduu waday wuu soo kordhiyey wuu soo kordhiyey 4 minute 12 second 4 minute 5 second wuu soo waday wuu jebiyey dabeetana waxaa la yidhi cajab nin baa soo baxay dunida mucjiso oo in yar kadib baa mid australia jebiyey sanadkii labaad 300 oo nin oo dunida ka mid ah orodyahankooda jebiyey 300 oo nin waxay leeyihiin marka hore dadka la cagsi geliyo la yidhi
lama dhaafi karo 40 minute ninaba ma dhaafi karo waa limitka bini aadamka laakiin waxay leeyihiin maskaxda bini aadamku waa qaabka loo qaabeeyo waa waxa ay rumaysato ilaahay kitaabkiisii baa sidaan macnaheedu waxa weeyaan waxa sidaan mucjisadii nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam waxa sidaan macnaheedu waxa weeyaan risaaladii nabi maxamed loo soo dhiibay ninka labadaa isku haya nabi maxamed ba inuu nabi ahaa wixii proof gareynayay wixii caddaynayay iyo risaaladii loo soo dhiibay nabi maxamed si kale haddaanu idhaahdo ninka laabtiisa ugu jiro ilaahay hadalkiisii hadal bini aadam oo yar markaynu baranno hebel waa khabiir waa dhakhtar waayo dee waxoogaa bugaagoo dhakhtarnimada ku saabsan buu si fiican loo barayo uu dadka ku daweeyaa markaa waa dhakhtar khatar ah intaasoo xanuun buu daweyn karaya ka waran xanuunka bini aadamka oo dhan ninka daweyn kara hadduu fahmo ilaahay kitaabkiisa qofka fahmaa bashariyada xanuunka hayoo dhan buu daweyn karaa every problem wax kasta oo mashkiladoo bini aadamku ka cawdo wuxuu doonaba ha noqdo waxaa laga helayaa kitaabkan qur-aanka ah walidaalika ayuha alikhwa markaa u baahantiin inaad dib ugu noqotaan waxa weeyaan qur-aankii waan qaybayoo bes dabeetana nin waalanunbaa saa yeela nin waalanunbaa idhaa qur-aankii waanigii dhallinyaradan diinta u kacday wada dadaalaysa dacwad iyo wanaag iyo intii daacada u heelan ilaahay hadda ayay dadka khayrka daba jooga dumar iyo rag waxay doonayaan deeqda mawlahay intaa waxaa duruus iyo tacliin lagu dadaalayo mid diyaarad raaciya ninkii dooni bad u fuulay taalibulcilmiga dhoofayee debadda aadaya duhurka iyo galabtii waxaa dawro soconaysa dadka khayrka lagu soo dumee lagu dabiibayo muxaadarada darandooriga ah ee laysu daba joojiyey danta looga jeeda ma aha duunye iyo maale dabaqyadii fardowsiyo halkuu doortay nebigeennu jannadaa la wada doonayaa daarta aakhiro eh بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم waxaynu joognaa xiisadii u dambeysay aynu ugu talagalnay inaynu ku qaadanno dowradeennan aynu u bixinay الدورة التأهيلية التربوية لحافظة القرآن الكريم ardaydu aad bay u mahadsan yihiin sida wanaagsan ay u dhegaysanayaan ee culimmada u dhuuxayaan cilmiga ay bixinayaan culimmaduna aad bay u mahadsan yihiin wakhtigooda qaaliga inoo huray ee jaaniskooda fiican ina siiyey sidaas daraaddeed sheekh haddaynu warbixin yar siino ardayda halkan fadhida waa ardaydii qur-aanka dhammaysay way kala duwan yihiin muddooyinka ay dhameeyeen goobaha ay ka yimaadeenna way kala duwan yihiin waxay ka kooban yihiin 10 sekondari sekondariyadii ugu sarreeyey dalka ardayda qaar baa ka yimid sida ilays sida irshaad nuuraddiin furqaan imaaraadka baxrayn iyo sekondariyada kale macruufka waxaa kale oo iyaguna ardaydu ka kala yimaadeen madaaristii qur-aanka oo ilaa 40 madarasadood ardayda qur-aanka ka dhammaysay ee markaa joogtay ay joogaan markaa sheekhu kolley risaalo weyn buu inoo xambaarsan yahay fariin weynna wayna siinaya insha allahu tacaala inagana waxay naga doonayeen inaan ka faa'iidaysano si toos ah waxaynu u gudbinaynaa fariinta sheekha waxaana leenahay ku soo dhawow sheekh jazaakum allahu khayr بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله اللهم وفقنا لما تحب وترضاه وبعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته
maraadu raggan iyo raggii qur-aanka qaybay waxaan isku dayayaa uun qur-aanka inaan wax ka tilmaamo. waxaynu wada ogsoonnay nebiga calayhi salaatu wasalaam wixii ugu horreeyey qur-aan ku soo dega isagoo aan waxna akhriyi jirin waxna qori jirin. yani nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ummi buu ahaa. ummigu waa qof aan qoraalkana aqoon, wax la qoray akhriskeedana aan aqoonin. noloshii ku soo koray saas bay ahayd. carab iyo dadkii dhulkaasi deganaana inta badan waxmay qori jirin. dadka wax qoraa dad yar oo tirsan bay ahaayeen. carabtuna may lahaynba thaqaafada wax qoritaanka. waxay ahaayeen oral society, thaqaafaadkan gabayada iyo afka iyo khudbadaha iyo wax la jeediye ku saabsan ee aan qoraal iyo buugaag iyo kutubtoona lahayn. waxay ahaayeen dad diintu ka qalloocatay oo asnaam caabuda halkay ilaahay ka caabudi lahaayeen. waxay ahayn dad dhaqamo badan oo ay wateen aanay ahayn dhaqamo islaamku uu soo dhoweynayo. qur-aankii koowaad ee nebiga loo soo dhiibay calayhi salaatu wasalaam ee ku soo degaa wuxuu se ka hadlayay iqra bismi rabbika aladii khalaq khalaqa alinsaana min calaq iqra warabuka alakramu aladii callama bilqalam callama alinsaana maa lam yaclam. qur-aankii koowaad ee nebiga ku soo degay wuxuu ka warramayay wax akhris iyo qoraal iyo qalim. iyadoo haddii la eego dhaqanka carbeed qof caadiya hadduu ahaan lahaa cidduu ka yimi qur-aanka kani waxaa laga yaabi lahaa inuu warxumaha iska daayo, wanaagga hala sameeyo, ilaahay laga cabso, meelaha in laga bilaabi lahaa. laakiin ilaahay wuxuu u doortay kitaabkiisa inuu ka bilaabo iqra bismi rabbika aladii khalaq. wax akhri. idan ayuha alikhwa, wax akhrintu oo ereygan dee qur-aan bay ka timi, qur-aan min qara'a bay ka timi, cinwaan u ah diinta islaamiga ah. waxay ku salaysantahay waxbarasho, aqoon barasho. aqoon la bartana waxa ugu sarraysaba dee rabbiga aqoonta iska loo la barto. ilaaha dadka iyo khalqiga iyo bini aadamku inta badan markuu makhluuqaadka wax ka ogaadaa buu is-ammaanaa. la yidhaahdaa ninkaasi waa injineer, kani waa khabiir, kani waa caynkan. waxaad wax ka ogaatay waa in yaroo makhluuqa ka mid ah. makhluuqaadkuna waa kitaab illaahi almanduur. culimmadu waxay yidhahdaan laba kitaab baa jira, mid qoran oo hadal ah oo ilaahay soo dejiyey, iyo mid camal oo farsamo oo ilaahay sameeyo farsamadiisiiya. ka farsamada ilaahay waxa weeyaan dunidan aynu arkayno o dhami. waxaad qaanuun lagu dhigo dhan, qaanuun baa physics iyo mid baa chemistry iyo mid baa biology iyo mid baa kana. qaanuunkan la sheegaya waxa weeyaan sidii alla wax u abuurun baynu isku dayna inaynu wax ka baranno. sidii wax alla u abuuray qofkan bini aadamka sidii ilaahay u abuuray ayaynu isku daynaa inaynu wax ka ogaano. idan waxaynu ogaanay wax yar oo xikmadda iyo cilmiga ilaahay uu kownkan ku dhigaya. qofkii intaa yar ka ogaadaa la odhanaya waa tabiib ama waa injineer, waa muhandis, waa khabiir, waa caalim, waa kan. kitaabka labaadna waa mid ilaahay soo dejiyey oo hadalkiisiiya oo cilmigiisiiya oo ugu talagalay inaynu baranno. anzalahu bicilmih. walidaalika ayuha alaxiba, waxaad tihiin dad haya ilaahay kitaabkiisii. kitaabkaasi saddex waxba wuu inooga baahanya inaynu kula dhaqanno. wuxuu inooga baahanya inaynu kula dhaqanno talaawatan, qiraa'a
akhrin وإلهي سبحانه وتعالى قرآن كله أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأتل ما أوحي إليك من كتاب ربك وأنا أتلو القرآن نبي عليه الصلاة والسلام حيل فري وأمرت أن أكون من المسلمين وأنا أتلو القرآن أخريا لي القرآن كان إنه أخرنا ولا ينفري كو إلهي أمانين وحقت الماما الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق التلاوة كأنه كتاب كسين تلا لما معناه في عربي كل هذا من ديوان تلا يتلو أخري من التلا يتبع وارها عويا والقمر إذا تلاها وإذا غنرانا إلهي سبحانه وتعالى وحو أمانا يكوي كتابك أخريي الراعي لبدا معنى باللفظ يقول كوب سنية ورتل القرآن ترتيلا سادر هدي قيبا يودم العامد يا قرآنكي أرنكودي وورد ماذا قرآنك واحد وقيبي سي واحد هيدين فرفرته ينو كوف ضد صادو فرفور الله وإلا هذيك لقيبستي سمحيسي وكرنيسي haddii uu noqonayo sidii gabay la qaybay oo kale kuwan gabyaaba inta soo gabay inta soo heesayayaan haddii uu hadal la qaybayo intuu noqdo bis halka aad ku ridayso mu ahayn danta laga lahaa waalidka dantu quraanka ku qaybsinay taamay ahayn quraanka la qaybay danta laga lahaa waxay ahayd inaad fahamto inuu fududaado oo markaad mawduuc u baahato inaad garan karto aayaadka ku soo arooro dhan inaad soo ururiso waad isbarbar dhigi karto oo aad aayad kasta siyaaqeedii garan karto maxaa ka horeeyay maxaa ka dambeeyay saasay macna ku samaynaysaa aayadii oo quraanka oo dhan intaad isu keento marka aad furfuri karto fahmi karto baa loo baahnaa idan qofka quraanka qayba jaranjaradii hadduu cagta saara maaha wuu dhameeyey hadduu cagta saaray halkii loo baahnaa waayo halka loo baahnaa waxa idin la fahmo halka loo baahnaa نبي محمد عليه الصلاة والسلام يا صحابتي قرآن وحو كسو دغي نبيغا صدح إيا 20 سنوات ولو يريري maxaa loogu yaryareeyey inay fahmaan daraaddeed ayaa loogu yaryareeyey dabeetana kolba in yar baa soo degaysay intaasaa lala falgelayay marka la garto dhacdooyinka la dhacaan baa in kala soo degaysay marka quraanka oo dhami nolosha fasiraysay inagu isagoo duuduuban baynu haysanaa dhamaystiran intaynu ka siinaa baynu sanad ku qaybaynaa ama ka yar ama in yar marka lagu daro 2 sano ninka gaabiyaana quraankii oo dhan waan qaybinaa oo Umar iyo Abu Bakar iyo raggii rag ahaa waxay 23 sanadood baranayeen ma sanad baynu inagu ku gabagabaynay maya waxa weeyaan wixii ay ka rabeen waxaan ahayn baynu inagu raadinay inagu waxaynu raadinay alfaada inaynu ilaalino quraanka markaad baranaysay waxa la isku dayay makharijta in lagu saxo oo sifaadka lagu saxo oo sida loogu dhawaaqo lagu saxo oo lagu ilaaliyo waxa ka sii muhiimsan in lagu ilaaliyo macnaha uu sheegayo iyo aayadu sheegayso iyo kelmadani waxay sheegayso iyo aayadani waxay ku soo inaad kaasi fahamtaaba waxay ka muhiimsan tahay inaad dhawaqeeda fahamto ma aha inaan leeyahay dhawaqu wuu liitaa maya dhawaqa sidii uu nabiga ugu soo degay in loo qabto quraanku waa muhiim laakiin waxaynu u baahannahay inaynu dib u noqono marka waxaan idin leeyahay hadda bilowdeen quraankii mar hadda qaybteen hadda bilowdeen haddaan kooyaa weeyaan haddaad bilowday diinta barashadeedii haddaad bilowday sharciga ogaantiisii haddaad bilowday mucjisadii nebi maxamed loo soo dhiibay calayhi salaatu wasalaam inaad garato ilaahay wuxuu qur-aanka ku leeyahay afalaa yatadabbaruuna alqur'aana walow kaana min cindi gayri illahi lawajaduu fiihi ikhtilaafan kaiira أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون كتاب أنزلناه إليك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب
أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها قرآنك أفرتا آيادات أيا لفظ التدبر كصاروري إن وحلا فيرصده أفرتا ما إلهي قرآنك وحكولي ميدا أفير سرني ميدا كنت تدبريني أفرتا آيادات لبنا ومكي لبنا ومدني لبا انتي مكلا جوغي صاد يا مؤمنون لبدا آيادات كجرا كتاب أنزلناه إليك ليدبروا آياته وليتذكروا أولو الألباب يا فلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين مكي كسودقي لبنا ومدني سورة محمد يا نساء مياهي لبدا كجرانا ومدني يعني وحلت الماما يا قرآنكو هدي مكلا جوغينا إنو باهيين إن لو فيرصده هدي مدينة جوغينا إن لو فيرصده إلهي وحكو عيبي قالوا منافقين مشركين اسكو ضدر قرآن كان يوفر سنين بالليل تدبركو كلمته أفري أفرتن شربي كلمة دبر قرآن كصاررت جدري وحي كصاروري أصل الكلمة معاني ذا دوحة كم ذا الظهر نبرك واستبق الباب وقدت قميصه من دبر ومن يولهم يومئذ دبره ولا مدبرا ولم يعقب إذن دبرك الله هذا حقن ضمبه حقن وقبل هره حقن ضمنا ودبر مركز دبدا كسي عام بحدين دبر لسيد هذا لكن تدبركم حويه مركز تدبركم حويه هي بين هذا العلماء adigoo isku dayaya waxa soo jeedkiisa qura inaad araga sii jeedkiisana inaad aragto haddaad waxa dhan walba ka aragta macnaheedu waa maxay ixaatad ku samaysay waxaad isku dayday inaad waxa si fiican u fahamto dhan walba waad iska taagtay waxa ilaahayna leeyahay marka la inama oran quraanka miyaanay akhrinin miyaanay eegin miyaanay wax ka fahmin miyaan macna badhuda dhicin waxa la leeyahay afalam yatadabbaru warmiyaanay quraanka dhan walba iska taagin baa la leeyahay tafakkurkooda iyo say u fakarayaan dhan walba quraanka miyaanay ka eegin ninka quraanka dhan walba ka eega ma gaaloobi karo weeyaan waayo gaala ilaahay muxuu ku ceebay afala yatadabbaruna alqur'ana am munafiqinti am ala qulubin aghfalaha afala yatadabbarun أيعرضون ولا يتدبرون القرآن ميكتشيسن يا قرآن كأفير سن مايان أم على قلوب أغفالها بل على قلوب أغفالها قلبك قوة حدم بإلهي سبحانه وتعالى كوي هرنا وحلوة المام وإلهي سبحانه وتعالى وليه مركي الله الشيء أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا قال دبا إلهي مياني قرآنك أفير سرودن والبكيئي ووايو ولو كان من عند غير الله قرآن كان يهدو كإيمان لها عدان الله أحين محادع لها لوجدوا فيه اختلافا كثيرا اسبران برين اسبرين قد دلولوين بدن بالهيل لها قاري ميلا روح قلت الماما يا وفلسفيكيشن تست waxay yiraahdaan yani qolyahan cilmi baadhka sameeya marka jaamacadaha iyo meelaha kale jooga meelaha wax lagu baadho ninba baxthi sameeyo waxbuu soo ogaadaa waxa uu soo ogaaday nadariyad buu keenaa uu leeyahay waxa caynka iyo caynka weeyaan intaan mujtamaca cilmiga aqbalin nadariyadna waa loo soo bandhigaa مجتمع علمي مركب بحث قال الله صوب بندقه وحلا يسقط يا إن لا الضره ولا بريه نكاسي وحشية جاي دم بين لقى قالوا الله موتشيه إن دمي كرتو هدي دمي ويدو مركب لوايه وح رأيه الدلولية ما إكسبيرمنتا مع علمي بارسو أركتدا الدلولية هدي لوايه وحلا إذا دواركت علمية مصافك علمي جابي قاعد مركب وحلقوا قراء الكتب العلمية قاعدة منظمة لقاطه دبتنا واحد فلسفيكيشن تست بالله هذا وحال مريو نفس الشيء بإلهين ليه مريا قرآن قبل وحيلهين ليه سبحانه وتعالى
afalam yatadabbaru alqur'aan qur-aankan miyaanay u fiirsanin walow kaana min cindi gayri illaahi lawajaduu fiihi ikhtilaafan kaiira baa ilahay leey ilaahay cid aan ahayn hadduu ka yimaado oo dee kitaab mawsuuco ah oo aakhiriya adduun ka warramaya oo janniya naar ka warramaya oo dhaqaaliya siyaasad ka warramaya oo taarikh hore iyo taarikh dambe ka warramaya oo sharci ka warramaya qaanuun madani iyo qaanuun jinaa'iya ka warramaya oo kownka iyo ishaaraadkiisa ka warramaya oo wax walba sheegaya waa mawsuuca haddana aan wax isbaraanbarinayo wax la daloolin karaa ku jirin waxay sheegaysaa inuu mucjis yahay waxay sheegaysaa min cindi rabbi alcaalamiin inuu ka yimi waxay sheegaysaa inuu nebi maxamed nebi yahay calayhi salaatu wasalaam ilahay markaa wuxuuna leeyahy qur-aankan dhan walba ka eego oo gaalkaa lagu ceebeeyey inuu dhan walba ka eegi waayo munaafiqaa lagu ceebeeyey inuu dhan walba ka eegi waayo innagana waxaa laynagu yidhi kitaabun anzalnaahu ilayka maxaa ku xiga okay kitaabkaa laynoo soo dejiyey innagana waxaa layna yidhi waa mubaarak waa barakaysan yihi wax waloo khayra baa ku jira maxaa loo soo dejiyey liyadabbaruu aayaatihi baa ilaahay yidhi waliyatadakkara ulul albaab danta laga leeya lama odhanan liyaqra'uu aayaatihi ee waxaa la yidhi maxay liyadabbaruu aayaatihi markaad qur-aanka qaybtay jaranjaradii baad isa soo taagtay qur-aanka looga baahnaa halkaasaad jaranjaradii koowaad baad timi waxaad u baahan tahay markaa inaad fahamto waxaad u baahan tahay inaad barato barashadiisa ayaa nolosha kugu filan walidaalika baa culamo waaweyni ayaa waxaa la sheegaa aakhirulcumrigoodii waxay ka calaacaleen wax badan aan wax kale ku bixiyey haddaan qur-aanka ku bixin lahaa haddaba nimanaynu a'immo u haysano waa ibnu taymiya waxaa la yidhaha markuu gaboobay waxyaabuu ku calaacalaya waxaa ka mid ahaa haddaan wakhtigaan wax kale ku bixiyey qur-aanka ku bixin lahaa wax badan oo kale uu baadhay oo cilmiya wuxuu leeyahay haddaan qur-aanka ku bixin lahaa baan kasii faa'iido badnaan lahayd haddaan isaga baadhistiisa tiro badin lahaa waxaynu u baahanay marka inaan qalbigeennu kaa qafilanee munaafiqiinta lagu sheegay ama kaa mushrikiinta lagu sheegay la yidhi qur-aankaba u fiirsan maayaan afalam yadabbaruu lqowl kuwa lagu sheegaya inaynan ka mid noqonin ee inaynu ku biiro kuwa qur-aanka u fiirsada oo kuwa qur-aanka u fiirsada waxay kala tagaan macno dhammaanteedba kuwa u fiirsan waaya bal u fiirsa ilaahay siduu u ceebeeyey ilaahay wuxuu yidhi waman adlamu yaa ka dulmi badan baa la yidhi miman dukira biaayaati rabbihi faacrada canha waman adlamu miman dukira biaayaati rabbihi uma acrada canha waa laba aayadood oo kala gedisan ilaahay wuxuu leeya yaa ka dulmi badan mid qur-aan loo sheegay oo ka jeestay oo bal mid hayo isagu ka jeestay dhegayso kan waaba loo sheegaya mid isagu laabta ku sitoo ka jeestay qur-aan nin laabta ku sita oo garanayo xifdisan waan iskuba dayin inuu fahmoba aan iskuba dayinba inuu fahmo ilaahay wuxuu leeya yaa kaa ka dulmi badan waayo nin qur-aan sita oo le waxba garan maayo wuxuu la mid yahay nin biyo iyo raashin sitoo yidhaahda gaajo iyo haraad baanu liitaaya waxaan cunaysiiya maxaad odhan lahayd waa nin yaro waalan soo maad tidhaahdeen haddaad u timaado nin gaadhigiisa ama faraskiisa wuxuu wato raashin nooc walba ah iyo biyo iyo sharaab nooc walbay ku raran yihin oo dadka dawarsanaya haddaad aragto maxaad samayn lahayd oo le aan waxaan cunayaa ii dhiibay ama waxaan cabbayaa i siiyey waxaa odhan lahayd kan waa mactuuh shubaya dhaandhaan soo maha waxbaa ka yaro maqan nin qur-aan hayoole yaa waxi baro meel kale orordaya oo waxbarasho kala raadinaya waa shuwaya mactuuh waayo wixii bini aadanba baran lahaa ee cirka ka soo degay ee rabbu samaawaat uu soo dejiyey ninkuu agtiisa taalla ee wax kala raadceeyey reer banu israa'iil markii almanu wasalwa la siiyey maxay yidhaahdeen basalya baanu doonaynaa miyay yidhaahdeen iyo cadas iyo waxaa loo jeedin waa nimankii waxaa la siiyey
waxaa la mid ah ninka qur-aan la siiyey ee sheekooyinkan meelahan dhadhow lagu hayo daydeeya iyo reer nebi aadameynahan ay qorqoreen oo qura daydeeya wuxuu la mid yahay atastabdiluun kuwaa ilaahay ku tilmaamay kuwaa la yidhi ma waxaa wax ku bedelanaysaa waxa kan qur-aanka nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam cidda mashquulka ku ah sababta loo ammaanay waa kaa markaa khayrukum man tacallama alqur'aana wacallama man tacallama alqur'aana maaha bialfaadihi wa xuruufihi faqat ninka xarfihiisa bartay oo qura maaha waa man tacallama alqur'aan baa la yidhi qur'aanka ninka bartay lafdan wa macnan bartay risaaladaasi ogaaday oo dadkana gaadhsiiyey kaas khayrukum baa nebi maxamed ku sheegaya waa ninka idinku khayr badan ilahay wuxuu ina leeyay walaakin kunuu rabbaaniyiina bima kuntum tucallimuuna alkitaaba wa bima kuntum tadrusuun daraasa waa cilmi baynu u baahanay inaynu baranno waxaa laga yaabaa dadka badh in lagu yidhi dee wuu adag yahay qur-aanku af carabiga ka sii adago qur-aankaa sii adago haye af ingiriisiga fudud baa umalaynaysaa qur-aanku ma adka af carabiguna ma adka ilaahay wuxuu leeyahy fainamaa yasarnaahu bilisaanika lacallahum yatadakkaruun walaqad yasarna alqur'aana lidikri fahal min mudakir fainamaa yasarnaahu bilisaanika litubashira bihi lmuttaqiin ilaahay wuxuu ku tilmaamayaa kitaab muyasar bitaysiir ilaahi subxaana wa tacaala waa kitaab fudud baa rabbi yidhi intaasoo fanniyo meel qura ku wada qoran oo haddana fudud weeyaan baa ilaahay yidhi ilaa ninka qur-aanka baranaya waa nin qaanuun baranaya oo siyaasad baranaya oo iqtisaad baranaya oo caqiido baranaya oo sharci baranaya oo akhlaaq baranaya oo taariikh baranaya oo aakhiro iyo qiyaamo baranaya oo dikri baranaya oo ilaahay sidaa loo baryo baranaya oo sidaa loo cibaadaysta baranaya oo gaalnimo waxay tahay baranaya waxaasoo cilmiya ninka wada baranaya ee is tidhahda waxaasoo dhan baro hadduu is idhahdo xaggan bini aadamka ka baado doontiihi baa ku dhacaya intaaba ma wada ogaan kartid in yaroo intaa ka mid ay kuu walwalaaqi doonaan laakiin haddaad rabto intaba inaad wada ogaato qur-aanku maro intaba haddaad rabto inaad wada ogaato kitaabkan bay intaba ku wada qorantay bal huwa aayaatun bayinaatun fii suduuri aladiina uutuu lcilma baa ilaah yidhi waa aayaad cadcad buu qur-aankani ku yahay kuwa cilmiga la siiyey laabtooda walaqad ji'naahum bikitaabin fasalnaahu calaa cilmin hudan waraxmatan liqowmin yu'minuun waxaanu la nimi baa ilaahay leeyay bini aadamka kitaab fasalnaahu calaa cilmin aanu kala bixbixinnay oo aqoon lagu kala bixbixiyey baa ilaahay leeyay kitaab aqoon iyo cilmi lagu kala bixbixiyey baan u keennay baa rabbi leeyay subxaana wa tacaala qur-aanka waxaa rabbi ku tilmaamaya inuu yahay nuurka wax lagu ifsado laydhkan maxaa lagu falayaa in wax lagu ifsado soo maaha shayga aad rabto inaad aragto inaad si waadixa u aragtid ayaa toojkan iyo nalkan laynoogu ifiyey kamaradaasi inay si waadixa wax u sawiri karto haddii nalka la damiyo kamaradaasi sawir aan wada muuqanaynin bay soo saaraysaa ilaahay qur-aanka wuxuu leeyahy yaa ayuha annaasu qad jaa'akum burhaanun min rabbikum waanzalnaa ilaykum nuuran mubiinan baa ilaah yidhi nuuran مبينا نور عبا الله سبحانه وتعالى قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام فآمنوا بالله ورسوله حكو حقا والنور الذي أنزلنا إلهي الرمي الرسول كي سبا إيا النور كي أن سودة شيبا إلهي لي the light إف كي أن دي سودة شيبا muxuu ifinayaa alxayaa kulliha nolosha dhammaanteed buu ifinayaa haddaad aakhiro doonayso isagaa lagu ifiyaa haddaad adduunka doonayso isagaa lagu ifiyaa haddaad sharci iyo qaanuun doonayso isagaa lagu ifiyaa haddaad siyaasad iyo dhaqaale doonayso isagaa lagu ifiyaa waxaad u baahan tahay noloshoo dhan isagaa ifinaya waa nuurun yustadaa'u bihi waa nuur magdiyada lagaga baxo faaladiina aamanuu bihi وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه با إلهي نبي محمد كوي الرمية وهيلية تاغيري إيه محي راعي با ليلي واتبعوا النور
الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. ولذلك أيها الإخوة، الحسن بن العلي بوحليه إن من كان قبلكم رأوا القرآن رسائل. وحين أردنا أيها الحبة قرآنك عبادة الله أخرية الله برطاه، ونقصوا فقصا قفكي حرف أخرية محوليه هي طبعا حسنه. إنا أعطينا ضاد أخرية وحي علماء كشيء قال لبي أفرتن حرف مالها إنيتي أفر يلا باطن أفر بقول يلا باطن أشربات لات علماء حروف القرآن كتيرية قاركود وحي كتل ماما سدح بقول وكون نكبدني سدح بقول وكون هذا أخرية وامسة مركز مرة ما يسوى 6 مليون أشرة طبعا مركز لو قلفته. إذن قرآنك أخرس كيسو ووحلو عباديسته ووينو قباهي وأنا حفظدين وأنا إلالين إنسان وأنا أخريسا وأنا كوردين إنسان لبا الشيء وكلو مهمة أيام مركزية نجرة. كو قرآنك والرسالة دي نبي محمد لو سوديبي وأنا معجزة دي نبي محمد. ummadihii hore inta badan mucjisaduna shay gaara bay ahaan jirtay, risaaladuna shay gaara bay ahayd. maalan nebi muuse maxaa la soo siiyey? muxuu watay kitaabkee? towraad buu watay. mucjisadiisuna maxay ahayd? ushii, gacantii, dafaadicdii, qumalkii, aayaadkii 9 ahaa ee qur-aanka ku qoraa ayay ahayd. idan mucjisaduna gaar bay ahayd, kitaabkuna gaar buu ahaa. ambiyadii qur-aanku ka sheekaynaya ama ka warramaya oo dhammi saasay ahaayeen. amaa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam mucjisadiisa iyo risaaladiisa waa mid qura. kitaabkan qur-aanka ah baa ah mucjisadii. markaynu mucjiso leenahay maxaynu u jeednaa? وبينة ووحي عدينا إنه الرسول يهي. إذن دينتي نبي محمد لو سوري بوردن كتاب القرآن باو أصله. نبي محمد إنه النبي يهي حاجات كأوغانسة قرآن كان. نبي محمد إنه النبي يهي قرآن كان باشيغية. السلام مركه إلهي وحي نقل هدلي نولشي نوردن إنه إصلاحيه وحي وكو قرانا وقرآن كان مركا قرآن كل وضع الشيء وذي برقرة. مرنا وحي النبي محمد عليه الصلاة والسلام النبي ساعدين مرنا وحي لين فريين نكون قرنو إيشيغي hadduu labadaa shay wadayay muxuu inooga baahan yahay markaa? ma inaynu akhrino qura ku wardino? maya, wuxuu u baahan yahay inaynu fahamno oo ku tadabburno oo baranno oo culumta islaamiga ahi wuxuunbaa asal u ah qur-aankaasi inaynu si xooggan u dhuuxno. oo nabigu calayhi salaatu wasalaam dadka wuxuu ku qiimeynaya kitaabka si u kala akhris badan yihin. صلاة يدين تكين يا ليلى كما أقرأكم لكتاب الله بالليل كيدن قراءة فعلا عد قرماها واجي هرنك قراءة ونكسل وحاها الأقرأ لكتاب الله أي الأفهم لمقاصده وحانك وأقوم بضله وهي قرآن كما أصلوها حتى هدار دمتان وحبل الليدين كالوايو nabigu qoladii wuxuu markii la aasay muxuu yiri labadii nin ee xabaasha lagu ridayba keeba la horumarinay xabaasha aqraahum li kitaabillahi ibn nabi xabaasha waxa ku horridaa ilaahi kitaabkiisa ki akhri badan haddaad dhimatana saasa loo kala maamuus badan iyo saa quraanka loo kala haysto ayaa maamuuska loo kala badan yahay aakhirana waxa loo kala manzilo sareynaya iqra ورتل كما كنت ترتل اقرا وارتقي بالله اخر يكر جنده ايادك هاga dhamaata halkay joogtaaba joogsanaysaa
idan booska sare aakhira jannada iyo magac iyo maamuuska lagu kala leeyahay xisaabta la taagan yahayna dee waa ka axaadiista badan inoo sheegaysa inuu qur-aanku isagoo shafeeca imanayo idan mansilada qofka mu'minka ahi waxay ku salaysantahay qur-aanka iyo intuu u jiro qur-aanka iyo siduu u fahmo siduu u akhriyo siduu u weeleeyo siduu u garto waxaynu kaloo tilmaamaynaa qur-aanku markaad ka timaado duuduubkaasi hore ee ku saabsiisan qiraa'adiisa iyo wardigiisa carab quri kuma toose xataa luqada carbeed masaadir alluga alcarabiya fi lqur'aan haddaad barato kamiyadii ugu ballaadhnayd baad haysaayo luqa carbeed xataa usluubkaaga luqawigaaba xataa kor noqonaya haddaad fahamto kitaabkan qur-aana iyo erayada ku qoran markaynu kaa soo dhaafno waxaan leenahay qasdiga weyne qur-aanka ka dambeeya akhriskiisu waa in la fahmo oo lagu dhaqmo rabbanaa wabcad fiihim rasuula minhum yatlu calayhim aayaatik wayucallimuhum alkitaaba walxikmata wayuzakiihim ducadii nebi ibraahim ilaahu waxaad ka soo dhex saartaa mid qur-aanka ku akhriya oo cilmigiisana bara oo taskiyeeya tarbiyeeya ereyga yuzakiihim baa ducada nebi ibraahim u dambeeya laakiin saddexda aayadooda kale qur-aanka ah ee masaladan ka warramaya xagga horey soo martaa huwa aladii bacata fi lumiyiina rasuula minhum yatluu calayhim maxaa ku xiga marka wayuzakiihim ibraahim yuzakiihim tuu dambaysiiyey markuu ducaynayay laakiin ilaahay markuu sheegayo saddexda jeer ee qur-aanka ay meelaha ku soo aroortayba yuzakiihim tuu soo horraysiiyey oo ah dadku intaanu qur-aanka cilmigiisa usii dhaadhicin inuu raboobo adigoo rabbaysan oo rabbigaa raacsiisan oo rabbaaniya inaad bilowdo qur-aanka iyo cilmi baadhistiisa iyo barashadiisa qur-aan akhris qura maaha markaa u fiirsataan xadiidkii nebigu calayhi salaatu wasalaam muxuu ahaa ma jtamaca qowmun fii beytin min buyuuti illahi yatluuna kitaab allahi wayatadaarasuunahu baynahum ilaa nazalat calayhim asakiina wagashyathum alraxma waxafathum almalaa'ika wadakarahum allahu fii man cindah wuxuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam duul isuguma yimaadaan guri ilaahay guryihiisa ka mid ah iyagoo laba shay samaynaya shayga koowaad waa maxay iyagoo akhrinaya ilaahay kitaabkiisa maxaa ku xiga wayatadaarasuuna qiraa'o qura lama rabo waxaa la rabaa daraasa lilkitaab baranaya baa ilaahay yidhi subxaana wa tacaala hadday taasi dhacdo ilaahay sakiinuu ku soo dejiya sakiinadu waa xasillooni bini aadamka nolosha waxa ugu dhibta badan le waxaa ka mid ah ama dunidaynu maanta joognaa stress and anxiety ayay ka warwartaa soo maaha dunidaynu maanta ku nool lahay alqalaq walikti'aab walidiraab xasillooni la'aan iyo warwar iyo walbahaar iyo baqe iyo waa dunidaynu maanta joogna ku soo ururtay dhakhaatiirta walbahaarka iyo waxaa ka shaqaysaa wadannada qaarkood bay waxay ka badan yihiin dhakhaatiirta kaleo dhan marka la isku daro caafimaadka intiisa kaleo dhan psychology and psychiatry baa iskaga badan bay yidhahdaan wadannada qaarkood macnaheedu waa maxay bini aadamka warwar baa wada haya mid hunguriguba warwargeliyo maxaad cuntaa ka warwaraya mid nabadi warwargeliso baqa ka warwaraya mid noloshaba warwar ka qaba mid guur warwar ka qaba mid shaqo warwarka waa warwaraya ilaahay wuxuu leeyahay haddaad qur-aanka intaad akhrido baratidna cilmiga iyo waxa ku jira aad daraasaysid xasilloonaa kugu soo degaysa warwarku wuu kaa tegaya alaa bidikri illaahi tatmainu lquluub warwarku wuu kaa hadhaya haddaad warwar isku aragto qur-aanka iyo dikriga laazim wagashyathum alraxma baa ilahay yidhi ilaahay naxariistiisa daboolaysa waxafathum almalaa'ika malaa'igtaa isku